نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. dadkii la kala googooyay waxa ka dhashay saddex qadiyadood. saddexda arrin ee soo socda aan sheegi doono waxa wadaagayay qof kasta oo isku dayay inuu daawo u baadi doono xanuunadaas. saddexda arrin waxay noqdeen nahda ama taqaddum, horumar oo ka soo horjeeda maxay takhallufka iyo dib u dhici. ummadda aan horumarino. qodobka labaad wuxuu noqday gobonnimo doon ama xorriyad, ama dadku inay xoroobaan ama istiqlaal helaan ama qadaayaadkooda iyaga gacantooda ay gasho. qodobka saddexaad wuxuu noqday midnimo iyo dadkii la kala googooyey inay is urursadaan. caalamulislaamiga guud inuu ku dhawaaqo الجامعة الإسلامية أو المؤتمر الإسلامي أو القابون أمدوبا إنه الرادعية قبل الذي هو سكال قوقو قابون إنه يمدوبا إنه الرادعية. إذن تاريخ دا الدنيا دا صدحات ورد من صدحنا شيء يذكر رعض إنه قبل نمي حرية هلان إيوه إن هرمر لهله إيه إن مدنمال لهله. mucaalijiinta dadka wax daweynaya waxay ahaayeen dadyow aragtiyo siyaasi oo kala gedisan leh. misaal waxaa ka mid ahaa qowmiyiin nationalist dad la yidhaahdo. qowmiyiintaasi cid waliba waxay u doonaysay xorriyad qowmiyaddooda. masalan soomaaliya haddaan dib u eego waxaa ka mid ahaa qowmiyiintii soomaaliyeed, dadkii gobonnimada soomaaliyeed dhaliyey, culumo leh, odayaal leh, salaadiin leh, dad intellectualisa, aqoon-yahan leh, dhallinyaro leh. waxaasoo dhammi waxay raadacaynayeen waxay ku tilmaamaan xorriyad, gobonnimo. qowmiyiinta soomaaliyeed waxay kaloo raadacaynayeen horumar. waxaa bilaabmay waxbarasho, schooling system, dadka in wax loo dhigo, horumarin la sameeyo. nooc min horumar ka mid ay bilaabeen. waxaa kaloo bilaabmay qowmiyiinta soomaaliyeed ku dhawaaqayeen wixii loo yaqaanay midnimo. maalan marka soomaali laga warramo waxay lahaayeen shanta soomaaliyeed. calankan buluuga ah ee xidigta shantii ku sawirantay, fikradda ka dambaysay waxay ahayd in soomaali shan ah oo isticmaar kala noocii uu gumaysanaya in la mideeyo. qowmiyiintaasi nawcun maa wax waa xaqiijiyeen. gobollada badh waa xoreeyeen, horumar wax waa ka sameeyeen, midnimo wax waa ka sameeyeen, waxbay xaqiijiyeen, meel soo gaadhsiiyeen. caalamulislaamiga guud markaynu eegno atyaafta siyaasigee kale taagnayd waxaa ka mid ah yasaariyiin, leftiist, shuuciyiin. maalan soomaalida wuxuu ka soo gaadhay maxay thawraddii ama kacaankii soomaaliyeed maxamed siyaad barre dawladdu hogaaminayey. scientific socialism bay iclaansadeen. iyana intanoo kale ay la dhawaaqayeen gobonnimo, xorriyad, horumar iyo midnimo. soomaaliya in la mideeyo. dagaallay u galeen iyagoo fikraddaasi xambaarsan. iyana nawcun maa waxbay sameeyeen. atyaafta iyana joogtay ka caalam alislaami, yani soomaali tusaalaan idinku soo qabanaya, laakiin qadiyaddani waa qadiya caalamiya. marka kan dunidii saddexaad oo dhan ama caalam alislaami oo dhan ayaa xornimo doonkani ka wada bilaabmay saddexdan shay un ku dhawaaqaya. iyagoo dadka wada qaar ay qowmiyiin yihiin, iyagoo dadka wada qaar ay yihiin maxay
shuuciyiin iyo madhabkaasi ay haystaan matalan jamaal cabdinaasir suuriya waxaasoo dhan bacthiyiintii ciraaq waxoo dhami saddexdan shay bay ku dhawaaqayeen waxaa ka mid ah islaamiyiin oo iyana ku dhawaaqayay ka qayb galay gobonnimo doonnimadii soomaaliyeed iyo tii caalamulislaami ka dhacday oo dhan oo jihaadiyadii iyo dagaaladii isticmaarka lagaga hortegay inta ugu badan markay dagaalada tay inta ugu badan culumaa waday hadday soomaali tahay iyo hadday caalamulislaamiga kala tahayba iyana raadinayay xornimo horumar iyo midnimo alwaxda waa laga yaabaa atyaafta siyaasiga markaan ka warramayno erayada tan fasirkooda mafhuum kala gedisan inuu ka dambeeyo matalan ninka islaamiga markuu xorriyad ka warramayo xorriyadiisa waxaa uga horraysa maxay tii ribciy ibnu caamir uu tilmaamayay dadka inaanu ka xorayno min cibaadati alcibaadi ila cibaadati illahi waxda awal alxorriya in waxay atyaaftaasi siyaasigii ku kala gedisnaayeen masalada sida erayadan loo sharxayo mooyaane saddexdan eray dhammaantood way wada qabeen marka aan arrimahan tilmaamayo waxaan leenahay dad badan oo qadiyaadkan u kacay waxaa laga yaabaa dadka badh inay dadkan oo dhan wada tuhmaan anigu ma wada tuhmaysanayo dad badan baa mukhlis ka aha daacad ka ahaa laakiin aqoontoodu intaa ay gaadhsiisnayd inta ay ka fakerayeen ama arkayeen ama u muuqatay ay inaha si gaadhsiisnayd laakiin daacadnimo ku jirtay waxaa se kala gedisnaa uun backgroundkooda ama munطalaqaadka fikriga ama meesha ay ka burqanayaan iyo afkaartooda xagga ay ka soo qaadanayaan oo matalan islaamiyiintu waxay rumaysnaayeen iyagoo aan islaamnimadooda ka tegin taariikhdoodii islaamigaa ku taxan oo dib ugu noqonaya identitygooda islaamiga ama islaamnimadooda muujisanaya inay mustaqbalkooda ku dhisaan oo xorriyadooda iyo midnimadooda iyo ummadda muslimiinta in la mideeyo inay saatan u socdaan su-aasha maanta isweydiinta le waxay tahay markaas haddii kooxihii soo maray taariikhda mucaasarka ah dhammaantood ay raadinayeen xorriyad ama gobonnimo nahd iyo horumar iyo waxda in taftiidka laga baxo saddexdii mushkiladood ee uu soo kordhiyey xilligii isticmaarku gumaysi takhalluf ama dib u dhac iyo googoyn dadka uu kala googooyu gumaysigu soo kordhiyey dadkii gumaystaha ka hortagoo dhammi waxay qaateen fikrada in la xoroobo in la midoobo in la horumaro soomaalida laakiin maanta iyaga su-aal baa u taallo ah bikulli atyaafihim isku daro saddexdii shay miyaynu ka tanaasullay midnimadii umamku ay raadacaynayeen inaguma waxaynu ku bedelay tamsiiq tuulaba tuulaha kasii durugto qabiilba qabiil ha ka baxo reer waliba keligii ha istaago ma fikraddaasaynu ku bedelnay fikraddii qowmiyiintii iyo yasaariyiintii iyo islaamiyiintii iyo wuxuuba raadacaynayeen awal waxaynu raadinaynay ama saddexda kooxoodba waxay raadinayeen xornimo gobonnimo istiqlaaliya inay gaar isu taagaan ma waxaynu ku bedelanay dhammaanteen marka la isku daro inaynu gaal isku xoojinno iyo gaalu yeedhasho iyo mujtamaca duwaligii inuu kuu taliyo in lagu isticmaarsado mujtamaca duwaligaa sida tan yidhi
caalamkowna soo gaadha ciddana inoo kaalaya wixii aynu raadcaynayna ahaa dadow naga taga annagaa tashanayne xorriyad baanu rabnaa istiqlaal baanu rabnaa waxaynu ku bedelay dhammaanteen cagsiga inaynu u fakarno ah almujtamac duwali wax la yidhaahdo mujtamaca duwaligaa waxaa inaga raba mujtamaca duwaligaa sidaa doonaya dunidu hayna soo gaadho waxay kooxaha horeo dhammi raadacaynayeen wax la yidhaahdo annahda horumar madumin iyo dagaal iyo digdig baa lagu bedelay idan bikulli lmandaq afkaartii qowmiga ahayd iyo tii yasaariga ahayd iyo tii islaamiga ahayd saddexda kooxoodba wixii ay doonayeen maanta ma taallo waxa yaalla saddexduba fikradday rabeen cagsigeeda su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay ma lmakhraj ma jiraa exit ma jiraa way out tuunalkan madow godkan madoowa la roorayo ma jiraa meel looga baxaa meel laga bixi kara ma jiraa ummadda soomaaliyeed laakiin waxay isweydiin lama waxay la mid noqotay sidii falasafada philosopherska waxay idhahdaan waxbaa kulmiya waxa kale oo dhanna way ku kala gedisan yihin bay idhahdaan falsafadda maxaa kulmiya falsafadda waxaa kulmiya baa la yidhahdaa su-aalaha la baadi doonayo jawaabtooda su-aalaha kulmiya bay idhaaheen ama marka jawaab loo tago filosof raacsani ma jiro wax jawaab falsafiya la yidhahdaa markaa ma jirto waa afkaar kala baxsan oo qoloba dhan martay laakiin waxay wadaagaan su-aashay iswada weydiinayaan soomaalidu ma sidii noocaasay noqoto mid wax weyn uma arko mujtamaca duwaligii inuu rabo inuu ku saytareeya waa wax la fahmi karo reer galbeedku dunida inay saytareeyaan iyo isla weynidoodi iyo kibirkoodi iyo dadka inay gumaystaan caalamka afraadda kama warramayo ka caalam inay u gumaystaan waa wax la garan karo goormaa mujtamac duwaligii dadka xornimo doon u ahaan jiray ma jirto dunida meel mujtamac duwaligii intuu dabagalay uu xoreeyey ma taallo umamka iyagu doonta xorriyaddooda iyo dantooda doontaada shiraaceeda dhanka aad u jeedinaysa aday kugu xidhan tahay markaas muslimiintu markay jabtayna ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum lama odhan khaalid baa farsamo yaqaan ahay oo dhabarka idinka jebiyey lama odhan ciddan kalaa oo fardaa halkan ka baxay waxaa loogu jawaabay qul huwa min cindi anfusikum waa riyo dadka bar waxay isugu sheekaynayaan dunidaan rabin inaynu xorowno gaalada rabta inaynu gumaysato etoobiya rabta inay caynka inaga yeesho kuwa kale dee dantooday wataan qofku inuu dantiisa raacda wax lala yaabo maaha war maxaad dantiina u raacanaysaan aday garaaddarro kuu tahy inaad qof ku ashtakayso dantaada maxaad u daba socotaa yaa responsible markaa mujtamac duwaliya eed ma leh ma responsibliga ma aha etoobiya inay danteeda raacato dhib uma arko waa danteedii igad inay danteeda raacato dhib uma arko waa danteeda cidda ay tahay inuu mas-uuliyaddiisa qaado dantiisa raacdo dadnimadiisa qaato xorriyaddiisa baadi doono istiqlaaliyaddiisa raadsado midnimadiisa raadiyo horumarkiisa raadceeya waa adiga idan dadka kale shaqadoodii bay qabsanayaan qof shaqadiisa haystaana ma ceebaysnaa hadda iyo waktigay soomaaliya joogto waxaan leenahay wakti badan oo qowmiyiini ay xagga sare joogeen way dhammaatay wakti yasaariyiini xagga sare joogeen way dhammaatay wakti qabaa'il iyo dad xoogani xagga sare joogeen way soo dhammaadeen al'aan alislaamiyuuna cala almaxak hadda waxa saaran ee su-aashu isweydiinta ka taagantahay waxa weeyaan qolada islaamka u nisbo sheeganaysa
dadka badh cabsiyo warwar buu qabaa armaa islaamnimadu fashishaa taasina ma jirto islaamku tajribo kuma jiro ee rag muslimiina tajribo ku jira labada kala saar islaamku 1000 sanadood buu dunida ka talinayay oo siyaasad uu hogaaminayay oo dhaqaale hogaaminayay oo ummad hogaaminayay oo caalamka ka talinayay islaamku wax 50 sanadood ka yar ayaa nabi maxamed iyo saxaabadiisa alayhi salaatu wasalaam dunida kaga taliyeen islaamku 1000 sanadood buu ahaa dawla al-ula fi al-aalam isaga wax la weydiiyo isagu ka taliya kelimada ugu dambaysa leh idan islaamku inuu noqonayo shay inta la jitaabiyo laga rajo beelay ma jirto taas yaa hadaa la tijaabinaya rag baa la tijaabinaya ijtihaadkood nin wadaad la yiraahdo ayaa tijaabada ku jira islaamku tijaabo kuma jiro islaamku tijaabo uu ka baxay waana mabda caalami oo la yaqaano guuleystay waxa tijaabada ku jira markaasi waxa weeyaan waa nin wadaad loo yaqaano